Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada walaalaha ku xidhan kanaalkeena YouTube-ka ee Cabdimajid Khadar. Waxa aynu bilaabi doonaa taxane cusub kaas oo aynu ku gorfayn doono afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay Turkiga oo aynu kala qaadi doono xalqado fara badan. Xalqadahaas oo iskugu jiri doona doorkii ay Yuhuuddu ku lahayd afgambiga Turkiga iyo sidii ay u soo maleegtay ee aanay mar walba Yuhuuddu ogoleen inay wadamada Islaamka ee sokoraya ay dib ula degto. Kusoo dhawaada xalqadii koowaad. Habeennimadii Sabtida soo galeysay ee 15 Juulaay 2016 xilli goorsheegtu ay ku beegnayd 9:00 fiidnimo ee waqtiga Turkiga iyo Bariga Afrika. Dadka Turkiga iyo dadyowga muslimiinta ah ee dunida ay soo dhamaysteen maalin nasasho iyo cibaado ayaa waxaa mar kaliya lagu soo naxay war degdeg ah oo ka soo dhacay telefishinka NTV ee dalka Turkiga. Waxa uu sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo wata gaadiidka gaashaandhigga ay xidheen bariishyada mataanaha ah ee Bosphorus oo isaga gudba badda Madow iyo badda Marmara, iskuna xidha magaalada Istanbul daanteeda ku taala qaaradda Aasiya iyo daanta xadka Yurub ku jirta. Fahmi waagii warkan iyo su'aalo daqiiqado yar jawaab loo la'aa kadib waxaa soo dhacay warkii mid ka ama kaag batay. Warbaahinta oo dhan ayaa soo tabinaya diyaarado qumaatiga u kaca ee ciidamadu ay dul beehaabayaan xarunta sirdoonka qaranka iyo dhismaha taliska guud ee ciidamada qalabka sida. Haddana waa war kale oo leh ciidano ka tirsan militariga oo aan ka garanayo ujeedada ayaa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Khahuri askar ka haystay xafiiskiisa xarunta taliska guud ee ciidamada. Ilaa imikana lama oga halka ay geeyeen generaalka iyo xitaa xaaladda runta ee uu ku sugan yahay. Geeri ama nolol. Waxaaba su'aal gashay ma nool yahay generaalku mise waa la dilay. Labada warba warbaahintu waa ay sheegaysay. Waa war kale oo leh diyaarad kuwa dagaalka ee ciidamada cirka Turkiga ayaa bambaane ku tuurtay qasriga madaxtooyada. Haddana waa war kale ilbiriqsiyo gudahood iska soo daba dhacaya oo midba midka ka sii hore ka yaab badan yahay ayaa dhago barjeeyay muwaadiniinta iyo guud ahaan dadka dunida daafaheeda. Warbaahinta kala socday habeenkaas isbedel xawaaraha dabaysha oo ka socday ayaa ilbiriqsi kasta soo kordhayay. Ra'iisul wasaarihii dalka bin Ali Yildirim ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dalku uu isku dayay afgambi ka dhacay balse la fashiliyay. Xukuumaduna 90% talada dalka ay gacanta ku hayso. Durbadiiba waxaa hadalka ra'iisul wasaaraha ka abuurmay dood hor leh. Intii afgambiga lagu jiray gudo iyo dibadba waxa ay wararka ra'iisul wasaaruhu ka qaateen in xaalku faraha ka baxay. Waxa ay su'aashu noqotay hadiiba xukuumaddu sida ra'iisul wasaaruhu u sheegay awoodii dalka hayso maxaa isaga u diiday in uu toos uga hadlo xaaladda ee uu ku kalifay qoraalka. Intii niyadda ka jeclayd in waxa dhacaya iyo riyo noqdo ayaa nafta ka samarsiiyay in xaalku gacanta uga jiro xukuumadda, laakiin su'aalo badan ayaa aanay iyagu jawaab u haynin. Madaxweynihii dhiiranaa ee Rajab Tayyip Erdogan yaa afgambigii fuliyay iyo nidaamka Erdogan diidanaa. Ma gudaha oo kaliya ayaa laga wadaa mise gacmo shisheeye ayaa ku jira? Ma u dhan yihiin ciidamadu xisbiyada siyaasadda ee ka soo horjeeday Erdogan? Go'aan noocee ah ayaa ay ka qaadan doonaan afgambigii? Su'aalahan iyo tobanaan la mid ah ayaa shaashada mar kaliya ka yeedhay. Laakiin waxa aan lagu kala baydhin in dalku uu galay xaalad ka gedisan tii hore. Waxa aanu muranka ku jirin in 10% xaaladda dalka ah ee uu ra'iisul wasaaruhu Yildirim qiray in ay faraha xukuumadda ka maqan tahay oo soo celinteeda ay sababi doonto duruufo siyaasadeed iyo dhaqaale aan la saadaalin karin. Ciidamadii afgambiga ayaa gudaha u galay xarunta telefishinka dawladda. Waxa aanay wariyihii fadhiyay miiska wararka oo gabadh ahayd ku qasbeen inay akhrido war murtiyad caanka ah ee ay
alaaba ciidamada soo saaraan xilliga ay talada dalalka afgambiyaan. tirsiga 1 ee la siiyana waxa ay astaan u tahay in tirsigii hore ee xukuumadda hadda koor ku soo socotay halka ku joogsatay oo kani bilow u yahay nidaam cusub iyo xeerar hor leh. wariyaha ayaa loo dhiibay warmurtiyeedkan oo marka la eego sida uu u nidaamsanaa iyo tayadiisa laga garanayo in uu hore u sii diyaarsanaa, waxaana la faray inay qasab ku akhrido. ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga oo ah curiyaha aasaasaha ah ee jamhuuriyadda isla markaana haya ammaanada hogaamiyihii weynaa ee Atatürk, iyaga oo ka duulaya halkudhigooda ah dalka oo nabad ah, dunida oo nabad ah. waxa ay soo saareen warmurtiyeedkan laga bilaabo 3 galabnimo ee bisha July. waxa ay ciidamadu la wareegeen taladii dalka si ay u dhisaan xiriir iyo iskaashi sidii hadda jirtay ka xoog badan oo uu dalku yeesho ururada iyo beesha caalamka si nabad iyo xasilooni dunida looga dhiso, ayaa lagu yiri warmurtiyeedku wariyuhu akhriyay. warmurtiyeedka laguma qorin taariikhda uu soo baxay, taas oo muujinaysa in uu ahaa qoraal hore oo uu diyaarsan, markii la diyaarinayayna aan la sii garanayn waqtiga la baahin doono. kooxda afgambigu waxa ay qoraalkoodan ku sheegeen in ciidamada qalabka sida ay hadda kadib gacanta ku haynayaan amniga, xasiloonida iyo barwaaqaynta shacabka Turkiga, dibna u soo celinayaan kaalintii caalamiga ahayd ee dowladoodu dunida ku lahaan jirtay. waxa ay damaanad qaadeen in ay dib u soo celinayaan dowladii ahayd calmaaniga dimuqraadiga ah, kuna dhisnayd awoodda shacabka iyo qaanuunka. warmurtiyeedka koowaad ee telefishinka laga akhriyay waxa ay ciidamadu ku sheegeen in hadda laga bilaabo lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah oo dalka oo dhan lagu dhaqangeliyo. isla daqiiqada laga bilaabo waxaa lagu dhawaaqaya xaalad degdeg ah oo dalka taafihiisa oo dhan ka dhaqangeliya. sidoo kale ilaa marka dambe waxaa dalka lagu soo rogi doonaa xayiraad dhaqdhaqaaq, ayaa lagu yiri. waxaa warmurtiyeedkan lagu soo gebagabeeyay liiska magacyada dad ay ciidamadu u magacaabeen in xaaladda degdeg ah ay hogaamiyaan gobolada iyo degmooyinka dalka, iyaga oo maamulana iyo lagu sheegay in guddiga xaaladda degdeg ah ay isla